بسم الله الرحمن الرحيم. astaanta jacaylka ee wadnaha way badan yihiin aragtiyaha ku soo arooray asal ahaan halka ay ka soo jeedo astaanta jacaylka ee wadnaha loo yaqaanaa wayna adag tahay in la xaqiijiyaa maadaama uu silifo gurkeedu uu galay kumanaan sano ka hor balse aragtida ugu dhow uguna macquulsan waxa ay dhigaysaa Aphrodite waxay ahayd gabadh Giriigii hore ka mid ah oo boqornimo iyo qurux meel isu taagtay tulkeedna waxay u yaqaaneen ilaahada jacaylka iyo quruxda wayna caabudi jireen sidoo kale waxay Roomaankuna u yaqaaneen Venus maadaama oo loo cibaadaysanayo qurux iyo boqorna ay u dhalatay waxay go'aansatay inay dadka ka duwanaato oo aanay wax dhar ah huwan bulshadana ay qaawanaan kula noolaato gabadhan waxa goob cibaado looga dhisay magaalada Athens ee Giriiga ragga iyo dumarkuna halkaas ayay ku tuman jireen iyagoo uga jeeda cibaado waxaana la sheegaa in macbadkeedaas la soo gaarsiiyay Dimashq iyo Xijaas oo sanamka Laata ee xilligii nabiga la caabudi jiray uu asal ahaan ka soo jeeday gabadhaas markii ay gabadhan xijaabatay ayaa la isu tagay oo la yiri maxaynu ku xasuusanaa gabadhan waxa ay lahayd laba sal oo aad u qurxoon u dhiibsan una dhisan kadib waxa ay ka bixiyeen labadii sal sawir leh qaab ah waxa aynu hadda u naqaano wadnaha wixii la caabudayayna laga fiican in la yiraahdo waa bari dumar ee waxa ay ku qeexeen in uu yahay wadne maadaama jacaylku wadnaha dego muddo kadib markii Kiristaankii qabsaday dhammaanba bulshadii ayay calaamadan u aqoonsadeen weynaynta qalbiga Ciise leebka laga dhex murkudiyo marka wadna ku sheegaa la sawirayana waxa ay ku qeexayaan in nabi Ciise la dilay sida ay aaminsan yihiin sidoo kale midabka cas ee lagu sheego inuu yahay midabka jacaylkana waxa looga dan leeyahay dhiiggii riyihii ay lubarkaaliyada ugu dabaaldegi jireen ee ay aaminsanaayeen inuu barakaysan yahay marmarna isagoo dhibco ilmo u eeg ah waata la sawiro sidii xilligii sanam caabudka ay ahaayeen reer galbeedku ee ay u caabudi jireen salalka gabadhaas naag kale oo ay caabudaanna ugu dabaaldegi jireen lubarkaaliyana u weynayn jireen ayay la soo kiristaamoobeen oo salalkii gabadha wadne ayaa laynoogu sheegay dhiiggii riyaha qurbaanka ahna midabka jacaylka ayaa laynooga dhigay dabaaldegii sanamyadoodana maalin xus mudan ayaa laynooga dhigay inta ugu badan astaamaha kiristanku adeegsadaana waa wixii iyaga ablaga soo gaadhka u ahaa oo iyaga oo sanam caabud ah caado iyo dhaqanna leh ayaa diinta kiristanku soo gaadhay maadaama oo diintaas diif badan oo dadkii loo soo dejiyey u geysteen ay ka muuqatayna dadkaasi dhaqamadoodii wax naf leh kama ay iman ee sidoodii ayay ula soo kiristaamoobeen kadib magacyadii iyo ujeedooyinkii ayuunbaa qaarkood laga bedelay aragtiyo kalena waxa ay tibaaxayaan in laga wada naasa hablood qaarna waxa ay ku doodayaan dawo dumarka dhasha lagaga ilaalin jiray ayaa qaab dhismeedkeedu caynkan ahaa oo laga soo xigtay sawirkan koox kalena waxa ay ku sheegaan in laga soo qaatay astaantan dhir gaar ah oo caleemahoodu qaabkeeda leeyihiin dar kalena dhirta lafteeda ayayba ku tibaaxeen in ay ahaayeen dhirtii sixirka laga samayn jiray waagaas sidaasna astaantan looga soo qaatay halkaasna waxa ay kaga arooriyeen sixir inay ku lug lahayd macnayaasha ay aragtiyuhu ka bixinayaan oo dhammina waa macnayaal iska agdhow oo sino iyo tumasho iyo qudhunuun la xidhiidha haddaba maxayna la gudboon maduuduub ayaynu ku liqnaa oo waynu aqbalnaa ruuxii how islaamka ahi waxaan dini kugu jirin waqti ha iskaga lumin dembi aadan ka soo waaqsanayna gundaha ha la gelin wixii lagu abuuray iyo aakhiradaadana ha hilmaamin dhaqan nin kale iyo gaalo jeclaysigana qalbigaaga ka dhow ogowna inuu nebigu yidhi ka tag wixii ku tuhungeliya oo aad wixii aan ku tuhungelin arrimahan oo dhammina waa shirki ee inta aad ka dheeraan karto ka dheerow haddii aad ku adkaysatana ogow inuu nebigu yidhi ruuxa si badheedh ah iigu been abuurtaa ha diyaarsado booskii uu naarta ka degi lahaa waddada qura ee aad ku badbaadaysaana waa adiga oo diintaadana aqoon u yeesha xalaal miiradna noqda haddii uu gaal kuugu faano shirkigiisa iyo habowgiisa adiguna keliyeynta aad rabbigaa badhaxla'aanta u caabudayso iyo toosnaantaada ugu faan intaad adigu addoon aragtiyihiisa iyo astaamihiisa xambaarsan u noqon lahayd isagu ha kuu noqdo naftaada iyo magacaagana gaal iyo garaadkii ha hoos geynin ee noqo qof maskaxdiisu xor tahay oo ilaahay mooyaane aan aadmi u gacan hoorsanayn ogow surin walbana ibliis ayaa kuu taagan haddii aad dembiyada aynu ka soo faalloonnay ku soo dhacday amaba aad hadda ku dhex jirto ka dhex bax oo faraha ka qaad hana ka quusan naxariista ilaahay waa dembi dhaafa naxariis badane daawade
wax kasta oo aad maqasho waa caalami sir la didayo oo dahsoon oo doqoni magarato ah ayaa ka dambaysa indho quraanjo iyo caqli gaalo midna lama garto wax aadan gun iyo baar koobin oo aqoon buuxda u lahaynna ha ku sirmin hana ku dagmin cid kasta oo aad wanaag la jeceshahayna uga dig adeegsiga astaamahan iyo wixii la mid ah